sheekada meeshan taala ويف هيا أبو هيا اسكيل عليا ماشي أيام نلوجد دقيقة أجانو دم وابوس نركا ماشي عندك عبد الكريم عيسى عداو أيا طبعا كاميرا دقيقة هي أوضوبية شغل الدول أيون هيا ما ممكن ولا دلال سيدا جدا ماشان وماشي عروسة هي عروسك أي فرديين وحفلته أي كسعتي رنتي آدم أوقف معي وحيا هيد فرحة وحيا هيد مروج إسكو بدأ شيء لكن الحمد لله عروسك يا عروسدي وحنا الله شيء إن أي نبض قبان أو ملك له أو هوتيل اللي جاي وحكست وقرال هي معاتري هي dad kale baa ciyaari oo dabcan haye marka dumar miyay ahay mise برامبر إياك السعودي هاي مركز سدح دقف ماشي الله قصو صاري داوع سدح ذو مدمر با مدي اسبيتال كلا دقي مان لبدي كلا داوع فوض بيها هاي هاي واي هاي نكاسر وحو ها مامولك أيو كميدي هاي هذا باركات والمصر هذا وسعدي معناه يعني صاحبك كجري معناه قفل ليس كجري أيه سجل ورئيس كرتان وياه ولا لك إيور سودو ماشان إن الجلد الدلقات بأوبا هنت هاي طبعا بوسنير كاكسو بحذي كورن ماشي كور هاي كورن مركا كبا كسو صارت هذا مركي ودن بيسي كبت ماشي اسكتها هاي ماشي اخوف من الرالي كبت سمعت كما حببتها مركا الا قنت هو سواتك سما هاي عيد اد با وفاكت مدو انت قف بلادك وحالك جودك جيسكي قف كلقك هاي ما جيسك دقيقه عاد قف من لقك هاي لكن هذا دحبرت ما سالت انت ولا قوي ولا مارك ادو بوسنيرada qoda هاي waayahay marka dhacdooyin kale oo sidaan oo kale aad dad soo badbaadisay iyo ma jireen wallahi door qofooda ku dhimatay saaxiibadii waa qaansay boosaneera haye laagani wax bigu ma gaarsiiyay haye bariiskii ku jireen aad waayahay ninkanina waa mid ka mid ah dadka loo keenay in ay baaritaan sameeyaan oo boosaneerka dumay ayuu ku jiray dabcan hadda waa uu ka soo baxay waa nin halgamaa ah oo arrimahan boosaneerada aad uga soo shaqeeyay waxa uu ii sheegay in saaxiibadiisii hore qaarkood ay shaqadan ku dhintay laakiin isagu uu ilaahay ka badbaadiyay daawadayaal waxaan ku sugannahay hoolkii xafladda arooska ay ka socotay ee soo dumay dabcan maamulka hoolkan iyo shaqaaluhu dadaal aad u badan bay sameeyeen dadkii inta badan waa ay ka badbaadiyeen meesha waa ay ka saareen dadaal badan bay sameeyeen saddexdii qof meesha ku dhacday la ii sheegay inay haweenka ahaayeenna way soo badbaadiyeen hal gabar ayaa sax dhaawac halis qabtaa la yiri oo isbitaal baa la dhigay iyadana waxaan ilaahay u weydiinaynaa caafimaad iyo in dhibta gaadhay uu uga booga dhago dabcan meeshan ayay ahayd meesha arooska loo diyaarinayay laakiin nasiib darro xafladaasi ma aysan noqon mid farxad ku soo gabagabowda waxaan rajaynaynaa caruusada iyo caruuska in waqti kale oo farxad ay qaataan
arintana ay u noqoto mid 10 ah oo dabcan maqaadir Allah ah inta badan Soomaaliya horay ay u jirtay in boosaneero kala duwan ay soo dumaan qaarkood guryo hoteelo arintaas oo sabab looga dhigo dhulka oo jilicsan iyo xilliyada qaar oo roobka ay da'aan oo kale iyo dadka oo meesha aad ugu socda arin ugaba ma ahan laakiin xaflad aroos ayaa dabcan meel aroos uu ka socday in ay soo duntaa waxay noqotay arin markaas ugaba waayahay maamulka ayaan ku soo laabanay aye gabagabadii waa la soo gabagabeeyay xaaladda ma sha Allah iyo waxa way waxay soo dhawaaqday waxba aan leeyahay marka ilaahay waxa uu keenay inta إن شاء الله طبعا ماشي قد كأوتاس بارتانكي قدام بي اللي سميه بارتانكي قدام بي اللي سميه والمستي شكذا ماشي عن تعالى ويف هيا أبو هيا سكيل عليا ماشي أيام لوجا دقيقة أجانو دم وابوسنيركا ماشي عندك عبد الكريم عيسى عداو أيا طبعا كاميرا دقيقة هيا أو دوبية شغل كل الدول أيونا هيا ما ممكن ولا دلال سيدا جدا ماشان وماشي عروسده iyo caruuska ay fadhiyeen oo xafladu ay ka socotay runtii aad baan uga xumahay waxay ahayd farxad waxay ahayd murugo isku bedeshay laakiin alxamdulillah arooskii iyo caruusadii waxaana loo sheegay in ay nabad qabaan oo meel kale oo hotel la geeyay wax kasta waa qoraal هي محاتري هي ها ها dad kale baa ciyaarayay oo dabcan haye marka dumar miyay ahay mise buraanbur iyaa ka socday haye marka saddexda qof ee meesha laga soo saaray ee dhaawaca saddexdu dumar baa midii isbitaalka la dhigay maan labadii kale dhaawac fudud bay ahaayeen haye waayahay ninkaasina waxa uu ahaa maamulka ayuu ka mid yahay hadda baaritaanka oo soo dhawaaday waxa uu soo cadeeyay macnaha ay waxba ku jirin macnaha qof la aysan ku jirin haye isaga loo wareysan kartaa waaya walaalkay ii war soo dhaw meeshan in la galo dulqaad bay u baahan tahay dabcan boosaneerka ka soo baxday ka waran meesha ka war haye ka waran marka kabba ka soo saartay markii ugu dambeysay kabta meesha iska taagno haye wixii meesha qof mal raadinayo kabta sameeyay ka waxa gubtaa marka ilaa gunta hoose waa tagtoma haye ciida aad baa u faagtay madowantay qof banaadigan waxa la qakar godadka geeskiisa qofka la qakar haye maan geeska diiqa caadi qof ma la qakar haye laakiin hadda dhaxbartmaas aale inta la qowli lama arkay adu boosaneerada qoda haye waayahay marka dhacdooyin kale oo sidaan oo kale aad dad soo badbaadisay iyo ma jireen boosaneera haye haye aad iyo aad waayahay ninkanina waa mid ka mid a dadka loo keenay in ay baaritaan sameeyaan oo boosaneerka dumay ayuu ku jiray dabcan hadda waa uu ka soo baxay
waa nin halgamaa ah oo arrimahan boosaneerada aad uga soo shaqeeyey. waxa uu ii sheegay in saaxiibadiisii hore qaarkood ay shaqadan ku dhinteen laakiin isagu uu ilaahay ka badbaadiyey. daawadayaal waxaan ku sugannahay hoolkii xafladda arooska ay ka socotay ee soo dumay. dabcan maamulka hoolkan iyo shaqaaluhu dadaal aad u badan bay sameeyeen. dadkii inta badan waa ay ka badbaadiyeen meesha, waa ay ka saareen. dadaal badan bay sameeyeen. saddexdii qof ee meesha ku dhacday ee la ii sheegay inay haweenka ahaayeenna way soo badbaadiyeen. hal gabar ayaa dhaawac halis qabtaa la yiri oo isbitaal baa la dhigay. iyadana waxaan ilaahay u weydiinaynaa caafimaad iyo in dhibta gaadhay uu uga booyo dhago. dabcan meeshaan ayay ahayd meesha arooska loo diyaarinayay, laakiin nasiib darro xafladdaasi ma aysan noqon mid farxad ku soo gabagabowda. waxaan rajaynaynaa caruusadda iyo caruuska in wakhti kale oo farxad ay qaataan, arrintana ay u noqoto mid cashar ah oo dabcan maqaadiir alla ah. inta badan Soomaaliya horey ayay u jirtay in boosaneero kala duwan ay soo dumaan, qaarkood guryo hoteelo, arrintaasoo sabab looga dhigo dhulka oo jilicsan iyo xilliyada qaar oo roobabka ay da'aan oo kale, iyo dadka oo meesha aad ugu socda. arrin ugaba ma ahan, laakiin xaflad aroos ayaa dabcan meel aroos uu ka socday in ay soo duntaa waxay noqotay arrin markaas ugaba. waayahay maamulka ayaan ku soo laabanay. aye gabagabadii waa la soo gabagabeeyey. xaaladda maasha Allah iyo waxa waaye waxay ku soo dhawaatay waxba aan leeyahay. marka ilaahay waxa uu keenay إن شاء الله. طبعا ماشي قدك أو تاس بارتانكي قدام بي السمي بارتانكي قدام بي السمي والمستي واحدة أنا ما أعرف ماشى صوفي سنة قلنتي وعن طبعا أروس كلام كسالو دياري من فراس تاس قدام بيسا وحنا قلنا سعتان تلفزيون كشبيلة إلا عبارة أيام ماشى نسي جوجي دورنا أنا جي كاميرا مانكا wixii macluumaad intaas dheerna waan idinla socodsiinayaa. magacaygu waa maxamuud soofay sane kulanti wacan. sheekada meeshaan taalla haye abo haye iska ilaaliya. meesha ayaana looga digayaa aaggaan oo dhan waa boosaneerka. meeshaan dhiga cabdikariin ciise cadaawo ayaa dabcan kaamirada iyo haya oo duubaya. shaqo kala duwan ayuuna hayaa. maamulku wuxuu wadaa dadaal. sidaad u jeedaan meeshaan waa meeshii caruusadda iyo caruuska ay fadhiyeen oo xafladdu ay ka socotay. runtii aad baan uga xumahay. waxay ahayd farxad, waxay ahayd murugo isku bedeshay. laakiin alxamdulillah arooskii iyo caruusaddii waxaana loo sheegay in ay nabad qabaan oo meel kale oo hoteela la geeyey. wax kasta waa qoraal. haye maxaa tiri haye dad kale baa ciyaarayay oo dabcan haye marka dumar miyay ahay mise buraanbur iyaa ka socday haye marka saddexda qof ee meesha laga soo saaray ee dhaawaca saddexdu ma dumar baa midii isbitaalka la dhigay maan labadii kale dhaawac fudud bay ahaayeen
ilaa markii dambe ay imaataba ilaa iyo askar ay imaadaan maamadii oo la waraysto kabacdi haye waayahay ninkaasina waxa uu ahaa maamulka ayuu ka mid yahay hadda baaritaanka oo noo soo dhamaaday waxa uu soo cadeeyay macnaha waxba ku jirin macnaha qofna aysan ku jirin haye isagana waa waraysan kartaa waayahay walaalka ii war soo dhowow meeshaan in la galo dulqaad bay u baahan tahay dabcan boosaneerkaa ka soo baxday ka waran meesha ka war haye ka waran marka kabbaa ka soo saarta hadda markii ugu dambeysay kabta meesha iska taagno haye wixii meesha qof mal raadinayo haa kabtiisna taagtana xabugtaa marka ilaa gunta hoose waa tagtay soo ma haye ciidda aad baa u faagtay madoobantay qof banaadigan waxaa laqi kara godadka geeskiisa qofka laqi kara haye maana geeska dhiiqa caadi qof ma laqi kara haye laakiin hadduu dhex bartamaas aale intoo laqo weli lama arkin haa aduu boosaneeradaa qodaa haye haa waayahay marka dhacdooyin kale oo sidaan oo kale aad dad soo badbaadisay iyo ma jireen dhowr qofood ku dhimato saaxiibadii waa qaan boosaneera ah haye haye aad iyo aad waayahay ninkanina waa mid ka mid a dadka loo keenay in ay baaritaan sameeyaan oo boosaneerka dumay ayuu ku jiray dabcan hadda waa uu ka soo baxay waa nin halgamaa ah oo arrimahan boosaneerada aad uga soo shaqeeyey waxa uu ii sheegay in saaxiibadiisii hore qaarkood ay shaqadan ku dhinteen laakiin isagu uu ilaahay ka badbaadiyey daawadayaal waxaan ku sugannahay hoolkii xafladda arooska ay ka socotay ee soo dumay dabcan maamulka hoolkan iyo shaqaaluhu dadaal aad u badan bay sameeyeen dadkii inta badan waa ay ka badbaadiyeen meesha waa ay ka saareen dadaal badan bay sameeyeen saddexdii qof ee meesha ku dhacday ee la ii sheegay inay haweenka ahaayeenna way soo badbaadiyeen hal gabar ayaa dhaawac halisa qabtaa la yiri oo isbitaal baa la dhigay iyadana waxaan ilaahay u weydiinaynaa caafimaad iyo in dhibta gaadhay uu uga booga dhago dabcan meeshaan ayay ahayd meesha arooska loo diyaarinayay laakiin nasiib darro xafladdaasi ma aysan noqon mid farxad ku soo gabagabowda waxaan rajaynaynaa caruusadda iyo caruuska in wakhti kale oo farxad ay qaataan arrintana ay u noqoto mid cashar ah oo dabcan maqaadiir alla ah inta badan Soomaaliya horay ayay u jirtay in boosaneero kala duwan ay soo dumaan qaarkood guryo oo teelo arrintaasoo sabab looga dhigo dhulka oo jilicsan iyo xilliyada qaar oo roobka ay da'aan oo kale iyo dadka oo meesha aad ugu socda arrin ugaba ma ahan laakiin xaflad aroos ayaa dabcan meel aroos uu ka socday in ay soo duntaa waxay noqotay arrin markaas ugaba waayahay maamulka ayaan ku soo laabanay haye gabagabadii waa la soo gabagabeeyey xaaladda ma sha Allah waxa waaye waxay ku soo dhawaaqay waxba aan leeyahay marka ilaahay waxa uu keenay inta إن شاء الله طبعا ماشي قدك أو تاس بارتانكي قدام بي اللي سميه بارتانكي قدام بي اللي سميه والمستي واحدة أنا ما أعرف ماشى صوفي سنة